bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni ama barnaamijkii madasha qoyska qaybtiisa weydiimaha ee TV-ga caalamiga SBC Somali TV qodobka toddobaadkan miiska inoo saaran si aynu horaba ugu sii baahinay ama aan idinku sii sheegnay waa qodobka ah ama mawduuca ah furniinka aamusan ama dalaaqa aamusan toddobaadkan su'aalo fara badan ayaa inaga soo gaaray bulshadeenta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan saasoo ay tahayna waxaynu soo qaadanaynaa isla mawduuceeni ahaa dalaaqa aamusan weydiimihii ugu faraha badnaa ee bulshada ka yimi waxay ku saabsanaayeen in lala jahwareeray ama lala yaabay muxuu yahay dalaaqa aamusan ama furniinka aamusan waxaa jirtay dadweyne badan oo xataa la yaabay in uu jiro waxyaabihii kamidka ahaa ama su'aalihii kamidka ahaa ay weydiinayeen bulshadu waxay ahayd horta bal muxuu yahay furniinka aamusan iyo dad badan oo ku nool ama soo maray balse aan aaminsanayn ama fahansanayn waxa ay ku jiraan ama ku kala dhacay inuu yahay furniinka aamusan haddii aynu sii ambaqaadno furniinka aamusan ama dalaaqa aamusan waa kala jab nololeed oo haddana ku wada nool saqaf gudihiis waxaa laga hadlayaa waa lamaanaha kaasoo haddana loogu yeedho ama lagu magacaabo dalaaqa aamusan waxaan shaki ku jirin in uu ka xun yahay dalaaqa rasmiga ah ama dalaaqa caadiga ah dalaaqan aamusan haddii aynu sii gudagalno wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo negative ah ama xun oo aan habboonayn haddii aynu qaar kamid ah ka taataabano waxaa kamid ah dalaaqa aamusan waxyaabaha xunxun ee uu leeyahay in lamaanaha oo cadaadisku ku bato dulqaadkuna ku yaraado taas oo kordhinaysa baa layidhi cufka dareenka guracan ee uu u qabo lamaanaha midba midka kale waxaa lunta baa layidhi rajada laga qabo inuu guurkaasi badbaado ama jacaylkaasi badbaado dadka hortoodana waxay kusoo bandhigaan baa layidhi lamaanaha noocaasi oo kale ah in ay jilaan in ay ku wada nool yihiin nolol caadi ah ama nolol jacayl leh waana wax xaqiiqada ka dheer qodobka saddexaad ee kale xun ee uu leeyahay dalaaqa aamusan ama furniinka aamusan waa in ay lamaanahaas ubadkooda u soo bandhigaan sawir khaldan oo uu leeyahay guurka ama ay ka aaminaanba guurka waxaa laga yaabaa baa lagu leeyahay in ay ubadku u arkaan lamaanaha noocaasi ah la nool ama furniinka aamusan uu saameeyay in ay u arkaanba guurku inuu yahay qolkii naarta ama in ay u arkaanba guurku inuu yahay qolkii naar ama arrin aad u xun oo aan habboonayn in uu dadku ku noolaadaan marka ay weynaadaan mashaakilka guurkooda ka haysta oo aad sare uga ilaa uu ka gaadho in ay ubadka hortiisa isku qabqabsadaan isku aflagaadeeyaan kuna dagaalamaan intaas waxay ahayd su'aalihii bulshadu ay ka sinaayeen isla markaan ka turjumayay mawduuceena maanta haatan haddii aan u gudagalo su'aasha ugu horeysa ee toddobaadkan miiska inoo saaran waxay ina leedahay ama inaga timi samatar oo jooga buu yidhi hadaaftimo walaal gabar ayaan wada joognaa buu yidhi gabadhu waa iga da'yar tahay waana dabeecad fiican tahay laakiin haddana muddadii u dambeysay oo hadda laga jooga buu yidhi sanad iyo bilooyin waxaan ku arkay wili isbedel dabeecadeed sida in ay iga aamusto wili oo aynaba kala ogeyn in aan guriga kula noolahay iyo in kale walaal arrintan hadda igala tali wili maxaan ka yeelaa weliba wili markaan kaa maqlay dalaaqa aamusan ayaan xaaladeena dib eegis ku sameeyay oo aan wax ka fahmay ayuu yiri aad ayuu u mahadsan yahay samatar oo fariintan inooga soo diray hadaaftimo horta samatar waxaan u malaynayaa in uu ka mid yahay dadka arrintani ay saameysay horta samatar waxaan u malaynayaa in uu ka mid yahay dadka ay arrintani saameysay haba ahaatee waxaan isla eegaynaa waxyaabaha lagu garto bal horta inuu guriga lamaanahaas uu ka jiro furniinka aamusan ee aynu isla soo sheegnay maxaad ku garan kartaa inuu adiga iyo lamaanahaaga kale ama adiga iyo xaaskaaga ama adiga iyo saygaaga arrintaasi idin haysato dhowr waxyaabood oo kamid ah ayaynu isla eegaynaa waxaa kamid ah baa la yiri kow in ay lamaanuhu dadka hortooda yihiin kuwa faraxsan aad isugu qanacsan qof walba arkana una ka shakiin ee u maleeyo in ay nolol degan oo xasilan ay ku wada nool yihiin waxyaabaha qariibka ah oo haddaba qodobkaas kugu soo jiidan kara haddii aad tahay qof arrintan u dhuun daloola waxaa kamid ah in aadan arkaynin iyaga oo lamaanahaas wax isku haysta ama khilaaf yar iskaga hor imaanaya ama wax yar isku diidaya waa wax laga shakay karo waayo nolol bilaa khilaaf ma jirto horeyna u soo aragnay horeyna u soo sheegnay
marka haddii aad aragtid lamaanaha in ay xilli walba aad u faraxsan yihiin xilli walba dadka hortooda ay ku mataliyaan lamaano maxaan kuu sheegayay dee nolol bilaa khilaafaad oo degan oo wax laga shaki karayo qofka caqli leh u muujinaya markaas waxaad dareemi kartaa maadaama halkaasi ay aad xaaladaas u degan tahay in ay fari ku mudan tahay arinta kale ee lagu garto ee labaad waxaa lagu leeyahay in uu lamaano walba ama maxay ahaydey labadii qof kastaaba uu saaxiibadiisa waqtiga ugu badan la qaato saaxiibadiisa familkiisa adigu qof ay isku dhow yihiin ama dad ay isku dhow yihiin buu waqtiga oo dhan la qaataa ayagu la maxay ahaydey la faraxsan yahay ayagu waqtiga inta ugu badan siinaya taas waxay ku tusinaysaa inuu midba midka kale uu xorriyad siinayo inuu midbaha midka kale uu xorriyad siinayo qofka aan fahansanayn ama arintan aan garanayn wuxuu u qaadanayaa inuu qofka kan yahay qof caqligiisa furan yahay maxay ahaydey lamaanihiisa wax walba u ogol waayo waqtigii ugu badnaa ila rabay in iyagu isla qaataan waxay la qaadanayaan dad qayrkood ah taasina waa qodobka labaad ama arinta labaad taasina waa arinta labaad ee kugu dhalin karta shaki ama aad ku garan karto in ay arintaasi jirto kalsoonidii oo luntay waxaad arkaysaa in uu mid walbaaba wax walba uu ka kale ka qarinayo oo wax walba gaar u qarinayo waxaad moodaaba ciyaarta dhuumaaleysiga in la ciyaaray qof ku kalsoon mal qof walbaaba inta awoodiisa ah ayuu ka kale wax ka xasaynaya oo ka qarinaya waa arinta saddexaad ee lagu garto talaaqa aamusan markuu lamaanihi xataa lamaanaha waxaa la doonayaa inuu garto markuu u arko in qodobadaas uu ku jiro oo uu sameynayo xataa wixii noloshiisa ku soo biiray ama ku cusba ama uu sameeyay ama uu la soo kulmay in uuna awoodi karin in uu la sheergalayo oo la wadaago lamaanihiisii kale waxaa lagu leeyahay arinta afraad oo ah talaaqa aamusan in uuna khasab ahayn in uu gaaro talaaqa rasmiga ah mararka qaar waxaa dhacda in ay ubadku dareemin haddii ay yaryar yihiin ay aad u da'yar yihiin in ay xaaladaasi gurigooda ka jirto waayo labadood waxay dusha uga egyihiin dad faraxsan dad aan waxba ka xumayn balse dhabtii waxay ku kala nool yihiin baa layidhi nolol aad u kala taasina ma aha baa in ay sawir wanaagsan ka bixiso guurka wanaagsan ee dhammaystiran nolosha caruurta ee mustaqbalka oo wax raad ku yeelan kara ubadkaaga haddaba intaasoo qodob haddaad samatar hayso wax dhab ah in aad ku jirtaan ama uu idinku kala dhex jiro waxaa loo yaqaano furniinka aamusan waxaa jirta ama dhici karta in qodobadaas qaar ka mid ah ama kuwa soo yara shabaha ay lamaanaha qaar isku arkaan inta ayna weynaan ama haddii aadba ka baqayso in uu lacala mustaqbalka kugu yimaado maxaa lagaga hortegi karaa waxyaabaha aad kaga hortegi kartid inaan arintaasi dhicin dhowr waxyaabood ayaan kasoo qaadanayn ayagana kow in aad isla qabsataan oo isfahantaan marka ugu horeysa ee aad nolosha bilaabaysaan iskuna waafaqdaan dhammaan shuruudaha qof walba shuruud ayuu leeyahay inuu midka kale shuruudaha isku waafaqaan haddii la isku waafaqi waayana meel dhexe la isugu yimaado almuslimuuna calaa shuruudihim sidaa darteed in aad dhammaan waxyaabaha mustaqbalkiina ku saabsan ee shuruud ah ama habla dhaqan ah aad isku waafaqdaan marka ugu horeysa ayaa xal ka noqon karta arintan in ay mustaqbalka idinku dhacdo in runta la isku sheego waa arinta labaad in runta la isku sheego oo saraaxa ah si maxay ahaydey aan waxba madmadow ah ku jirin lagu wada dhaqmo markasta oo ay dhibaato timaado dhibaato ayaa timi ama khalad ayaa kala dhex galay labadii lamaane ama mid ayaa sameeyay in dhabta la isku sheego isla markaana la isla xaliyo waa xalka labaad ee arintan lagaga hortegi karo in ay dhacdo arinta saddexaad ah in ay labada lamaanaba garowsadaan in ay xuquuq isku leeyihiin in ay xuquuq lamaane isku leeyihiin midba midka kale in uu ogaado xuquuqda uu ku leeyahay ee alla ku faral yeelay loogana baahan yahay in uu kula dhaqmo lamaanihiisa kale in labada lamaane ay ka wada dhaxaysa baa lagu leeyahay guusha guurkooda sidii ay u wada xaqiijin lahaayeen in uu mid kastaaba mas'uuliyad iska saaro sida uu qoyskooda iyo guurkooda uu u guuleysan lahaa afarta arrimood oo la sameeyaa waxay ka hortagi karaan in ay arintani dhacdo hadda ama mustaqbalka haddii aynu haddaba usoo noqono inagoo toos u abaarayna su-aashii samatar waynu isla garanay inuu xaaladan xataa haddii aynu qodobada qaar xataa haddii aynan inagu goobjoogayaal ka ahayn balse aynu keliya ku salaynayno su-aashii uu ina soo weydiiyey hadda waxaa isweydiin mudan arintani way dhacday maxaad ku daweyn kartaa samatar in aad ama haatan iyo dan aad ku maareyso noloshaada qoys sidayna heerka ugu daran ayna u gaadhin
in la qirto in ay mushkiladaasi jirto wax walbana daboolka laga qaado adiga iyo xaaskaaga intaad isku timaadana wada fadhiisatan inaad arrintan ka dhaadhiciso una sheegto adigoo sababaha noocaas ah u aaneynaya iyo waxyaabaha aad u soo taagnayd in arrintaasi jirto wax walba ay tabanaysid wax walba adigu tabanaysidna daboolka laga qaado oo la xaliyo waa midda koobaad talabaad waxa weeye in lagu eerto dad khubro ah oo arrimahan u dhown daloola isla markaana idinka agdhow ama idinka baxsan almuhiim dad khubro ah inaad arrintan la beegsataan si aad uga heshaan la talin buuxda oo aad wax ku qaban karto saddexaad waxay noqonaysaa in waanooyinka iyo talooyinka aad khibrada iyo dadka idinku xeeran ee aad ka hesheen in ay idinka caawiyaan in idinka kaalmayaan arrintan iyagoo idinku caawinaya khibradooda nololeed in aad arrimihii ka soo baxay waanooyinka iyo talooyinka ka soo baxay aad tadbiiqisaan ama hirgelisaan oo aad ku dhaqaaqdaan sameynteeda waayo haddii wax walba la idin sheego oo aydan meeshii ka soo qaadin arrintii waad fahanteen laakiin mushkiladii sidii waanadii la idinku yiri ku xaliya aydan ku talaabsan ku xalin halka waxba kama soo baxayso macnaa fiican ma sameynayso in aad arrintii ogaato haddii aadan xalinayn oo sidii lagu sheegay aadan ula tacaamulayn arrinta afraad oo ah iyaduna in dadaal adag loo maro sidii uu guurkan ku guuleysan lahaa oo reedwaad istoorateen waxaa tin lamaana istoortay cidna isku soo jojoobin xataa haddii la isku kiindaray mararka qaar waxaa dhici karta markaasna in aad maxay ahaydey idinku markii la isku kinkana isku qanacdeen si kastaba ha ahaato mar walba guurkan iyo qoyskan waa qoys dhisan waajibkan waxa weeye in uu guuleysto marka waxaa la rabaa in aad labadiina u xusul duubataan sida uu qoyskan ku guuleysan lahaa intaas oo qodob ama arrimood haddii la waayo oo aad ka soo quusato ama aad ka wada quusataan halka aad gaari kartaan ugu dambeeya waxa weeyaan in furniinka rasmiga ah uu dhaco oo aad halka ku kala tagtaan waxa arinta u xal ah waayo waxa isla soo garanay waayo waxyaabii xumaa ay isla soo aragnay ayaa waxa kamid ahaa in lamaanuhu ay ku wada noolaadaan cadaadis dulqaad la'aan cabur iyo dhibaatooyin fara badan in ay lumayso rajadii laga qabay in uu guurkan guuleysto ama uu jacaylkani guuleysto sidaa darteed halka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa talaaqa rasmiga ah waxa lagu leeyahay isaga ayaa xal u ah ubadkaas iyo waliba lamaanahaas balse waa iyagoo ilaalinaya in ay iskula tacaamulaan habla dhaqan wanaagsan ubadkoodana ku wada maareeyaan si ilbaxnimo leh loo wada dhaqmo la karaameeyo ubadka isla markaana la karaameeyo noloshii wacnayd ee hore idin soo wada martay intaas ayaan kaga baxayaa su'aashii walaalo Samatar iyo waliba faaqadii mawduuceena aynu ku sameynaynay daawadayaal haddii aan u guda galno su'aasha labaad iyadana toddobaadka miiska inoo saaran waxay inaga timi ama ina leedahay abay waxaan ahay bay tiri hooyo haysata hadda caruur ninkaygana waxaan ahayn bay tiri dad waqti badan wanaag iyo isfahan dad ku soo wada noolaa laakiin waxaa dhacday dad dano gaar ah watay in ay soo faragashtaan bay tiri oo isaga dhankiisa ka soo jeeda oo ay naga dhex shaqayn jireen muddo waxaa dhacday in aan marka tagay gurigeyga sabab xanuun iyo khalad uu ninkaygu iga galay kadib waxa wada hadlay dad familkayga kamida wada hadalkaas waxa ka sii dhashay is-afgaran waa ku saabsan dadkii markii hore naga dhex shaqaynayay ee naga faa'iideysanayay waxaana dhacday in markii dambe isagiina loo guuriyay ayadoo anna laygu xumaynayo waxa jir dangama galin anigoo fiirinaya ilmahayga oo aad u yar yar kadib markaan ka diiri waayay arrintaas in noloshii reerka la soo faragashto ayaa la gaaray tir si kastaba hala ila dhaqmay kadib ayadoo ay saas tahay ninka waxa uu soo baxay tir laan dibadda ah wuuna tagay laakiin khaladaadkii ma harin ilaa markii dambe isagoo maqan aan kala tagnay bay tiri waxaan kala maqnay muddo 3 sano ah intaas iga muusan harin bay tiri wuxuu igu lahaa aan reerkeena soo ceshano iyo waan aqlisaday dhaqankaygana waan bedelayaa waan ka aqbalay oo waan ku noqday bay tiri waxaan arkay bay tiri in xiriid kayagu fiicnayn oo aad gaabs u sii galayo hadda wuxuu jiraa bay dibadii ma soo waco arrimo aan isku ogeyna in uu noo sameeyana wuu diiday oo wuxuu ii sheegay in uu na sameyn karin wuxuu iigu hanjaabay tiri inuu san imaanayn ina furayn arrintaas baan rabaa walaalo in aad igala taliso gabadhan waxa inoo sheegtay in ay joogto Burtinle waxaan joogaa Burtinle balse waxay ka gaabsatay magaceeda waa tahay walaalo aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo reer Burtinle waan soo dhaweynaa barnaamijka madasha qoyska ee TV-ga caalamiga SBC Somali TV
horta walaashan caqabado fara badan oo aad isu bedbedelay ayay la soo dirsay ama ay la soo dirseen haddaba waxaad halkaa ka aragtaa in arrimahaas hore ee dhacay ay dhacday in haddana laga wada hadlay lagu kala tegay haddana la isugu soo noqday oo laga wada heshiiyey inagu haddaba waxaynu anba qaadaynaa ta ugu dambeysa oo inuu xiriirkooda aad u yaryahay isla markaana uu ku maqan yahay dalka dibadiisa xiriir wanaagsan ay una ka dhaxayn oo xiriirkooda uu gaab ku jiro isla markaana kadib markay cilaaqadooda halka marayso oo ugu hanjabo in uuna soo furaynin ama imaanaynin waa tahay walaalo waxaan ku sheegaynaa 4 waano oo isku kiisoo dhaweyn karta adiga iyo saygaaga marka waxaas oo dhan laga yimaado waxay u muuqdaan dhibaatooyinkii hore waxa laga gaaray hadda yadan iyo haatan taagan waxa weeye kala fogaanshaha xiriirkiina maadaama isma dalka dibadiisa ku maqan yahay adiguna aad dalka gudihiisa joogto isla markaana xiriir wanaagsan oo dhexdiina ka dhaxayn inta badan dadku waxay u maleeyaan dadka kala maqan ee kala fog in xiriirka ka dhaxeeya una guuleysan taas waa mid khalad ah balse dadka ku takhasusay qaar kamid ah majaalada cilaaqaadka iyo caadifaadka ah ama jacaylka ah arintan aad ay uga soo horjeedaan waxayna aaminsan yihiin in la maareyn karo inaguna waynu aaminsanahay waayo waxaad kaliya simple ugu soo qaadan kartaa qofka marka aad adigu daneynaysid ama iska badaamid aad daneynaysid uu yahay qof waalidka ah ama si kale idin walaaltinimo idin ka dhaxayso ama walaalkaaga ah meel kasta uu ku maqan yahay si kasta uu kaaga dheer yahay waxa dhacda inaynu xiriir la sameeyno xal ogaano waliba inagu hore xiisa u qabno aynu la xiriirno meel kasta uu joogo waliba inagu indhaha ka qarsan in hadda aad sare tiknoolajiyada ugu kacday oo warqada iyo sawirka iyo muuqaalka meesha halka ugu dambeysay caalamka uu gaarayo marka walaashay arintaas oo dhan intaad xagga dambe ka tuurto waxaan kugula talinayaa in aad balkow adiga iyo naftaada safxad cusub bilowdo wixii soo dhacay aad xalisay ama la xaliyay ee muddada dheer soo qaatay isla markaana aad ka fiyoobaatay in aadan dib u gacan oo aadan dib u hiban ayaan kugula talinayaa in aad baal cusub bilowdid nolosha maalin walba cusub xikmadda in ay maalin walba qorraxdu inoo soo baxdo ku jirta ayaa ah in ay tahay maanta maalin cusub wixii shalayna uu yahay wax tagta ah oo laga soo tagay oo aan qiimo lahayn shalay marka aad dhahdid micna ahaan waxaad dareemaysaa inuu waxaasi qiimo dhacay laakiin maanta waxaad dareemaysaa inuu waxaasi qiimihiisii uu leeyahay birina qiimo ka sii badan ta maanta la joogo ay ku fadhido balse haddana dadka psychologiyiinta iyo khubarada caalamku waxay dhahaan ilow shalay wixii dhacay biri waxa dhici doonana ha ka fakarin oo alla ku reeb balse adiga waajibka ku saaran waxa weeye maanta in aad la falgasho iyo waxa dhacaya maanta waxa dhacaya in ay ku quseeyaan adiga Soomaaliya hadana waxaanu ku maahnaa wax tigsimaad male marka waxaan doonayaa in aadan wixii tagay aadan horta haba yaraatee noloshaada mar kale iyo niyadaada toona aadan soo gelin oo aad isku dayday inaad bal nolol cusub maanta cusub aad bilowdo dhowr qodob oo yaryar ayaan kugula talinayaa oo aan u maleynayo in ay isku kiin soo dhaweyn karto adii saygaaga marka wax walba oo kale laga yimaado waxa aad u muhiim ah in aad wada xiriiraan oo saacado badan ku qaadataan taleefanka waayo waxaad waaysan hadii kala xiriirkeen cudurdaar ma jiro oo tiknoolajiyada halka marayso waad la socotaa qodobka labaad ah in aad adeegsataan habab kale oo aad ku xiriiraan hadii aydan awoodin taleefanka ku xiriiraan internetka ka wada xiriir ama message caadi ah isku diri kartaan oo waliba adiga ayaan kugula talinayaa imika in aad taleefanka la xiriirdo hadii ku suurtagal waayo message u dirto ama internetka aad maxay heeday kala xiriirid khubarada markaan dhankooda eegno arintan oo kale ama adiga waxay kugula talinayaan oo ku taliyaan markay arintan taagan tahay xiriirkaasi si uu u soo noolaado oo dardar u yeesho in ay maalin walba lamaanahaasi xiriiraan isla markaana ay waqti gaar ah u qoondeeyaan hadii Skype ka wada hadli karaan hadii Google Voice ka wada hadli karaan WhatsApp call-ka Messenger-ka meel walba in aad ka wada xiriiraan waqti aad isla ogtiin oo cayiman حتى هدي ولا ما أنا كل خد كسوق جلوايو أما أكل سحر جلوايو تام يعني هذا ما إن أديجو إسكدينيسد أما أد إسديبيسد وإن أديجو وضع إلا أدك جالسد هدفك أضليده حفظه بالقولي شرارة يعني إن أد حيسج لسان حرير كينا إن الوحياة هديده
aad hawada isu marisaan haddii dumaha khasabtii la isu diri jiray balse waxaa ka mid noqon kara oo kale oo hadda ka fudud in aad waxyaabo waraaqa ah ama waxyaabo soo jiidasho leh maxay ahayd sawirro soo jiidasho leh waxyaabahaas ka turjumaya kalgacaylka aad hawada isku marisaan sida in aad emailada isugu qortaan gabay qoraal qurxoon fiyoore oo kale ubax oo kale xiliyada shaqada taasi maxay xaqiijinaysaa bay kula tahay طبعا waxay xaqiijinaysaa inaad iska fakaraysaan way marka adiga dirtid qofkiina uu soo diro qofka kale inuu maskaxda ku hayo maanka ku hayo ayuu ka fakarayaa inkastoo aad kala fogtiin haddana fariin kasta oo isku dirtaan oo kale iyo laab ka soo go'da daqiiqada idin kuma qaadanayso waxaad ogaataan in ay jiraan waqtiyo xun oo ayna jiri doonaan waqtiyo xun khasab ma aha in aad nolol wanaagsan weligaa ku noolaato khasabna ma aha in aad nolol wanaagsan aad sugtid in aad ku noolaato waxyaabo aad u farbadan ayaa isbedelay waxyaabaasna waa inaad u toog haysaan waxaad ogaataa in ay shaqada aad xataa ka shaqaynaysaan ay caqabad ku noqon karto in ay dhici karaan waxyaabo degdeg ah oo aydan ka sii fakarin aydan u toog hayn ayaa dhici kara marka shay aad ku wada heshiiseen haddii uu saygaaga ka baxo hawada ama meesha uu ka baxo ma aha in la cadhootid shay baad isku waafaqday in uu sameeyo waxa dhici karta in xaalado dhaqaale oo xun ay dhaceen waxa dhici karta meeshii aad islahayd waxba laga soo helayaa in wixii laga soo heli lahaa ay si kale u dhacaan oo wixii laga heli waayo waxa dhici karta in xaalado caafimaad badan soo kordho waxa dhici karta in maciishadii kor u kacdo waxa dhici karta in maxay ahaday arrimo kale oo qoys ay hawada soo galaan waxa dhici karta saygaaga in dhibaatooyin fara badan ay xagga family-ga kaga yimaadaan isla markaana una awoodi karin ama awood u yeelan shaygii ama arrintii uu ka ballan qaaday in uu fuliyo maadaama saas dhici karto oo aad ogsoon tahay in ay dhacday ama aad og tahay ama aad la socoto in wax dhici karto maaha in lamaana uga calootid oo aad guluf ugu qaadid isla markaana aad uga cadgoosato ama aad furitaan ku hadaaqdo waa tahay intaas ayaan kaga baxayaa walaashay oo fariintan inaga soo dirtay Burtinle waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad adiga iyo reer Burtinle ku soo dhawaada barnaamijkeena madasha qoyska qaybtiisa TV-ga ee weydiimaha waa tahay daawadayaal su'aasha xigta iyo haddii aan u guda galo ee toddobaadkan inoo saaran miiska waxay leedahay magacaygu waa Cabdi Ciise waxaan ahay nin dhalinyaro ah waxaan leeyahay hal xaas iyo caruur hadda waxaan ka maqanahay muddo 1 sano ah wadan kale ayaan joogaa xaaskiga aad baan isu jecelayn buu yiri waxaan dareemayaa kuleyl xagga gabadha iiga imaanaya hadda sababna uma hayo buu yiri waxaan hadal wanaagsan ahayna uma qura buu yiri iyaduna mar walba waxay iiga dalbanaysaa buu yiri in aan kala tagno wax baahina ma qabto sidaas darteed wuxuu yiri halkan waxaan ka dareemayaa in xiriirkayagu uu gaab kala dhex galay oo aanu ahayn sidayadii hore midbana dhinaca kale uu wax ku tabiyo isla markaana aanu kala aamusanahay ayuu yiri wax aan ku xaliyana arrintan aanan garanaynin isla markaana jecelahay buu yiri in aad igala talisaan arrintan waxa la gudboon iyo sida aan wax ku xalin karo aamuskan naga dhaxeeyana aan ku xalin karo aad ayuu u mahadsan yahay walaal Cabdi Ciise oo fariintan inaga soo gaadhay walaal horta waxaan ku leenahay su'aashaada waa su'aal dareen gaar ah xambaarsan waana su'aal ku tacalluqda isla mawduuca maanta miiska inoo saaran halkan ugu ku hayno inta aynaan balse toddobaadkan iyo jawaabtaada u guda gelin waxaan doonayaa in aynu nasasho yar isla eegno kadibna aan su'aashaada jawaabteeda u soo noqono laakiin bacda break wala horta ugu horeyn warqada nooga kaatimin waa mid aanu fahmayno waana soo dhaweynaynaa xaaladana waa mid adag waayo qofka ma jirto wax kaga xun ama kaga adag in gurigiisii uu dhibaatada la soo maray ee inta soo dhisay uu hortiisa ku dumo ama isagoo aan waxba u qaban karin uu daawado dumitaanka qoyskiisa iyo gurigiisa marka labaad sidii aad noo sheegtay horeba aad noogu sheegtay isla markaana aanan ku xusin su'aasha balse fariimahaaga kamidka ahaa waxa kamid ahaa inay xaaskaagu tahay qof ahlu diina soonta oo salaada isla markaana kutubta marsata waxaan ku leeyahay hambali waayo taas waxay ku tahay ifaalo wanaagsan oo aan laga maarmi karin waayo qofkas marka uu sidaa yahay waxa kaliya oo ugu jilicsan ugu nugul wax loogu sheego waa isagoo laga soo gala xagga raxmaanka iyo diinteena suuban
isla markaana sunnaha iyo maxay ahayd quraanka wax loogu sheego hatta ha noqoto tan ugu dambeysay in hadda isku haysaan haba noqoto safarkaaga sidoo kale waxaan ku sheegay gabadha diinta ee sida sheegtay in ayna iska dalbanin dalaaqa waayo waa dadka ugu xog ogaalsan arrimaha guraacan ee arintan laga dhaxlo marka afaad oo ah inaynu arintan xalino oo aynu dawadeeda helno dhowr waxyaalood ayaa toddobaadkan inoo saaran oo aan rabno inaan kugula talino marka ugu horeyso waxa weeye horta koobta ganaash in aad muujisid in aad rabbigaaga ku kalsoonaatid waayo waxaad maadaama qof mu'min tahay waxaad ogtahay in aynu waxba dhici karin qadarta Ilaahay mooyaan maadaama qadarta Ilaahay wax walba ku socdaan xikmadda Ilaahay wax walba ku socdaan Ilaahayna uu yahay cid lagu kalsoonaan karo kalsooni buuxda la siin karo waxaan ka dalbanaynaa koow horta in aad istajisid oo aad xaalad degan adigu marka ugu horeysa naftaada ku maareyso deganaanshahaas waxay ka caawinaysaa inaad si xikmad iyo caqli badan ay ku dheehan tahay in aad ula macaamisho xaaladda taagan ee ku haysata isla markaana xanuunka iyo dhibaatooyinka iyo xiriirka ku haysta uu yaraado marka labaad waxaad sameynaysaa waxaad isku daydaa xaaskaaga maadaama kala maqantiid saad sheegtay warna ayna ka maqlin adigana maxay heeday aadan la xiriirin ayna war ka dhigaysanin ama hadal ka dhigaysanin in aad u dirto warqad fariin ah oo qoraal ah ma aha warqadii caadiga ah sidii hore la isugu dhibi jiray traditionalka ma waxa weeyaan warqad text message ama email ahaan aad ugu dirtid cinwaankeeda ama lambarkeeda warqadda dhexdeeda ayaynu sii galeynaa warqadda koow waxaad ku bilaabaysaa waxaan doonayaa in isla aragno warqad waa la diraay iska dirma ah warqadii in aynu sii dhaxgalno oo aad talaabooyinka aad raacaysay aan kula eegno annagu waxaan ku soo jeedinaynaa oo madasha qoyska kugula talinaysaa in aad koow warqadda marka aad bilaabaysid maxay ahayd tuducda ugu horeysa in aad ku muujiso kalgacalka iyo maxabada aad u hayso iyo waliba sida aad u ilaashanayso ayada marka labaad waa qaybta labaad warqadda in aad xusto waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay quruxdeeda ayadu gaarka u leedahay Ilaahay siiyay in aad waxyaabo noocaas oo kale ku xustid sidoo kale inaad ku xustid abaal ay ku gashay isla markaana mawaaqiftaas waxyaabaha wanaagsan ku gashay aadan marnaba ilaawi karin ta saddexaad ee warqaddan ay ka kooban tahay in aad xusto waxyaabo idinka gaar idin ah oo qurxoona oo idin dhexmaray noloshiina hore bilowgeeda iyo xilligaad wada joogteen aad nolosha wanaagsan wada qaadanayseen waxyaabo ay dartaa u samaysay adigoo inkiraadana iska ilaalinaya xubinta afraad oo warqaddan ay ka kooban tahay waxaad xustaa dhibaatooyin ama farta ku muddo dhibaatooyin aad ogtahay in ay idin kala dhaxayaan waayo ma jiro laba qof oo isku xanaaqa ma jiro laba qof oo go'aan heerkaas wada gaadha ayagoo maxay ahaydey aan dhibaatooyin kala tirsanayn oo aan eed kala sheeganayn marka eedan waxa laga yaabaa inta ugu badan in aad la socotid marka eedahaas in aad farta ku fiiqdo isla markaana u soo bandhigto hababka aad u xalin kartaan adigoo ka dhab sheegaya isla markaana ku dadaalaya in aad arinta xalinayso sida aad dhibaatooyinkaas ku daweyn kartaan aad ku xalin kartaan qodobka sidaas dhibaatada sidaas ah isla markaana aynu sidaa ku xalin doono insha Allah sidoo kale waxaad warqadda ugu dambeyntii ku soo gunaanadaa in aad ilaashanayso ayada iyo caruurteeda iyo kalgacalka aad u qabtid aadna ka rajaynayso oo ka filayso ayada in ay go'aankaas ka noqoto si wanaagsan oo macquul ah ay kula soo xiriidho isla markaana aad wax walba alla ka tala saaratay oo aad Allah u deynayso in uu wanaaga kugu aadiyo halka waxaan kaga baxnay qaabkii aad warqadda ama text message-ka aad ugu qori lahayd haddii aan usoo noqono marxaladihii kale oo hadda ku beegan markii shanaad haddii ay cilaaqad fiican idinka dhaxayso hooyadeed isla markaana aad u aaneynayso hooyadeed in ay tahay hooyo caaqilad ah oo caqli badan alla ku manaystay waxaad awoodaa in aad kala kaashato arrintan ka haysata xaaskaaga markaas dhibi kuma jirto in aad la hadasho maamada oo u sheegto in arrintan wax ka qabato oo ay isku daydo in ay badbaadiso gurigiina gabadheedana u caqli celiso waliba maadaama qof diin la tahay isla markaan diinta ku dhexmilan saameynta ay diintu ku yeelan karto iyo alla ka cabsiga iyo xuquuqda iyo waajibaadka ay isku leeyihiin maxay ahayd lamaano la xasuusiyo maxay ahayd wax door weyn ka qaadan kara in ay soo rujuucdo halka kaga halimaysidee tii lixaad bad u gudbaysaa oo ah in aad u adeegsato dumar saalixaad ah
waa dumar si aad dumar saalixaad oo wanaagsan oo aad ku ogtahay in ay dad wanaagsan yihiin oo aan sharwadayaal ahayn markaas waxa la inay ku feejignaadaan isla markaana aad adiga maxay ahayd marka ugu horeysaba aad u sheegto in ayna ku ogeysin xaaskaaga in aad adigu u soo dirtay balse ayagu is soo xilqaameen waayo hadda adigu soo dirto waxa laga yaabaa inay si wanaagsan wax ka qaadan balse haday u marayso in dad maxay ahayd khayrkooda ka shaqeynaya iska socdaa yihiin waxa laga yaabaa in wax badan ka dhageysato ugu dambeyntii Allah tala saaro dhamaan waxyaabahan kula talanay samee cabdi alla maxay ahayd bari oo maxay ahayd weydiiso in uu xaaskaaga ku soo hanuuniyo isla markaana in uu ayada iyo caruurtaba uu ku hagaajiyo aad u mahadsantahay cabdi waxaan leenahay dhamaantii soo dhawaada barnaamijka madasha qoyska qaybkiisa weydiimaha TV caalamiga SBC Somali TV waa tahay daawadayaal sida caadaba halka aad kala socotaan barnaamijkan madasha qoyska waa TV caalamiga SBC Somali TV xaruntiisa Boosaaso hadii aan u guda galno su'aasha afraad ee toddobaadkan iyadana miiska inoo saaran waxayna leedahay magacaygu waa Saynab oo joogta magaalada Qardho walaal waxaan ahay bay tiri gabar guur hore soo martay kadib waxaan iscalmanay bay tiri qof kale oo wanaagsan alxamdulillah si rasmi ah ayaan isku mehersanay ayay tiri arintan way fiicneed markii hore walaashay balse markii la soo gaaray bay tiri xilligii arooska aanu ku balanay in aanu dhigano ayuu isbedelay bay tiri ma garanayo wax ku dhacay markaan weydiiyana wuxuu ileeyahay bay tiri waynu degdegnee aynu si fiican isu barano saa oo ay tahayna xiriir fiican oo wada sheekaysi iyo isbarasho ah nagama dhexayaan oo nama dhexmar bay tiri walaashay marka mowduucan aan maqlay ayaan ka shakiyay bay tiri in xaaladayadu sidaa tahay waa tahay aad iyo mahadsantahay walaal Saynab oo Qardho fariinta inooga soo dirtay waxaan leenahay dhamaantiin reer Qardho ku soo dhawaada barnaamijka madasha qoyska qaybtiisa weydiimaha arintan waa arin dhacda badanaan waxaa loo aanayaa khaladaad ay sameeyaan gabdhaha guurka hore soo maray ama carmalka ah waxa laga yaabaa walaashay in aadan kaliya aynu su'aashan kugu koobnayn dumar aad u fara badan maxay hadagayga Soomaaliyeed iyo caalamka dhan ay kula qabaan waxaa jira 13 khalad oo ay sameeyso gabadha carmalka ah marka ay doonayso in ay nolol cusub ay dib u sameeyso khaladaadka maxaa kamid ah ayaad u maleynaysaa khaladaadkaas waxaa kamid ah kow in ay muujiso in ay doonayso in ay guursato markiiba ma oga in uu ninka kan cusub ay doonayso in uu guursato uu ka boodayo arintan waayo waxa dhacda waxaba jiraba qaar mas'uuliyadda degdega aan ragga jecelayn marka gabadha carmalka arintan ay xoog saartaa markiiba inay dhacdo waana arin aan sax ahayn oo waxa laga rabaa in aad cagsigeeda la sameeyo oo aad istajiso isla markaana guurka aadan ku degdegin mas'uuliyadana aadan kula degdegin isaga qodobka labaad ay sameeyaan waxa weeyaan gabdhaha carmalka in ay ka tanaasulaan wax kasta oo ay xaq u lahayd wixii ay rabtay mudadalibaadkeedii wixii ay dalban lahayd dhamaan way ka tanaasulaysaa waa inaad naftaada qiimeysaa xilli kasta ha ahaado xataa hadduu dalaaq kadib yahay taas sawir khaldan ayay kaaga bixinaysaa bulshada oo ah in aad daciif tahay ama qofka aad guursanayso in aad daciif tahay ayuuba ku qaadan karaa inta isleedahay adigu waxa ku suurta galaan waxa laga yaabaa in dib lagaaga gurto oo dhawaa maxay qofkan daciifka qodob saddexaad oo la isla afkartay caalamka ah in ayna waqti ku filan ayna qaadan si uga bugsato dhaawacii furniinka ee soo haleelay waqti ku filan ayuu u baahan yahay furniinka in maxay ahayd dhaawaciis laga bugsado taas ma sameeyaan ogow walaashay ugu yaraan waxaad u baahan tahay hal sano in aad kaga bugsatid halka raggu ay u baahan yihiin dhowr bilood oo kaliya balse adiga ka dumar ahaan waxaad u baahan tahay hal sano oo kaamil ah ugu yaraan in aad muddo isiisid aad kaga bugsato dhaawacii ka soo gaaray furniinkii hore qodobka afraad ama khaladka afraad ay sameeyaan muxuu yahay in ay aad uga hadlaan oo maxay ahaydey ay u falanqeeyaan ninkoodii hore ay soo kala tageen iska jirba hadaba ninkan kale wuxuu u maleynayaa in aad ninkii hore ilaawi karin oo aad wali isaga xasuusanto aad jeceshahay wuxuu u maleynayaa in aad wali doonayso danaynayso kulama oo carabkaaga uu ku badan yahay aad ka sheekeynaysid marka waxa laga rabaa tacagsigeed inaad sameysid oo aad ilowdid hortiisana aadan ku soo hadal qaadin qofka cusub ee aad doonayso inaad nolosha la bilowdo waxa la yiri marka shanaad waxay difaacaan baa la yiri dalaaqi dhacay
kaasna waa khatar kale iska jir maxaa yeelay waxa laga yaabaa qofka kan kale ee nolosha ka rajaynayso cusub in uu ku arko qof talaaquba hiwaayadiisa iyo shaqadiisa ay tahay oo maxay ahayd waxaan wax uu ku shaqaystay waayo difaac baa la soo taagan qof shakhsiyad xoog badan leh inaad isu muujisid baa laga yaabaa in aad ugu doonaysid sida aqligaaga ah oo maxay ahayd xataa qirinaysid inaad khaladaad ka lahayd inaad adigu ka tagtay inaad adigu sidan yeeshay bala qofkan wuxuu ku arkayaa qof lagu degdegi kara inaad marka waxa laga yaabaa qodobkaana ama khaladkaasna in aad ka feejignaato oo aadan sameyn waxa la leeyahay khaladka lixaad ay sameeyso waxa weeyaan in ay isku daydo in ay doorato qofkii hore soo kala tageen qof u eg ninkii hore nin u eg ay raadinaysaa waayo ogoos walaashay taasna waa waqti lumis ma jiro qof boqol qofka kale u eg ama isku eg yihiin waa maxay qodobka ama khaladka toddobaad ay sameeyso gabadha carmalka waxa weeyaan in ay caruurtii hore ay ninkii hore u soo dhashay markiiba ay ka cusbaa barto ninkii markiiba la baraya ilmihii baa la baraya hadaba ogsoono ninkan adiga ayuu rabaa inuu ku barto ma rabo inuu caruurta ninka kale u soo dhashay uu barto khaladkan waa in aadan sameeynin ee aad ka hortagto khaladka sideeda khaldan ee ay sameeyaan waxa weeyaan in ay markiiba guursadaan immediately markiiba degdeg ay ku guursadaan taasna waa natiijo aarsi oo ay ka aarsanayso saygeedii hore balse miskiintan ma oga in uu guurkan dambe kaga argoosanayso kii hore una isaguna waarayn ma aha mid waaraya waayo muxuu ku dhisan yahay khash iyo in aad wax ka aarsatid iyo maxay ahaydey dhidibo aad u daciif ah ayaad markii hore ku yeeqleeshay khaladka sagaalaad oo ah in ay soo bandhigto gabadh carmalka ah in waxyaabo akhlaaqiyan ka baxsan dhaqamo bilaa akhlaaq ah markii qiimeyn lagu sameeyay xaaladan waxa la ogaaday dumar badan in ay jiraan oo akhlaaqdu ay ka lunto waayo maxaa taas sababaya waxay dareemayaan baa lagu leeyahay in ay xorriyad heleen in ay ninka doonaan guursan karaan in ay meesha doonaan mari karaan taasoo karaamada iyo ciidada nafsiga ay leeyihiin ba ka qaadaysa qodobka tobnaad ama khaladka tobnaad ah in ay yani ku hadaaqaan oo kale qof ama say gabigiisba khiyaali ah sifooyin khiyaali ah in ay helaan oo aan arladaba joogin taasina ugu waqti ay ka qaadaysa iyo waliba fursad kale oo guur maxaa yeelay qof misaali ah ama boqol dhamaystiran ma jiro qodobka kale tobnaad ama khaladka kale tobnaad ee ay galaan gabdhahaasi waxaa ka mid ah in qisooyinkii hore ee murugada lahaa ay uga sheekayaan oo soo bandhigaan saygan cusub ama ninkan cusub ee la doonay in la iskursado ninkan ma doonayo qisooyinkaaga murugooyinka lahaa inuu dhageysto iyadoo waxay isleedahay waxay isku dayaysaa ama rabtaa in ay naxariistiisa kasbato oo waxay leedahay waxaan doonayaa in aan naxariis ka helo qisooyinka murugada lahaa bal waxa laga yaabaa in ay isleedahay bal kanayo sidaa kugu sameynay buugga raxmadda ha kugu baaro sheekadu sidaa ma ah isagu ma doonin waxyaabaha ogaado waxaana dhici karta in ay adiga kugu soo laabato oo bari ka maalin hub lagu adeegsado ay waxyaabahaasi noqdaan qodobka 12aad ama khaladka 12aad ee ugu dambeeyay ee ay sameeyaan waxa weeyaan in ay markiiba gabdha carmalka ama gabadha carmalka ninka ugu horeeyay aragto ay iska jeclaato ay dhahdo khalaas waan guursanayaa khalaas maxay ahaydey waa fiican yahay qodobka 13aad oo ah in ay gabadha carmalka nin kasto ay aragto ama la sheekaysto ama ay maxay xiriir dhexmaro ama ay doonayso in ay guursato in ay barbar dhigto kii hore ee nolosheeda soo maray oo ay maanta ka halkaas isaga eegtiin ma halkaas kala duwantiin ragna waxay ugu neceb yihiin gabadha ninkii hore ama saygoodii hore barbar dhiga balse nasiib xumo dumarka qaar baa arrintaas samaan mooda taana waa in aad ka hortagtaa oo aadan ku kicin qodobadaas waxaa laga yaabaa walaashay waxaan qodobada u taxay xiriirka gaaba idin soo kala dhexgalay kadib meherka idinka arooska soo kala dhexgalay ee aamusnaanta gaadhay maxay kala jab xiriireed gaadhay ku dhawaanaya in ay arrimahan qaar kamid ay sabab u yihiin oo aad ku kacday haddii aad ku kacday waxaan ku leenahay bedel haddii aadan ku kicin waxaan ku leenahay iska ilaali intaas sababada iska ka hortagtid waxaan rajaynayaa in ayna caqabad ayna jiri doonin noloshaada hor istaagta iyo guurkaaga labaad waliba balse marka laga yimaado tiyaale hadii ay tiyaale tahay inaan halka waxba ka sii qornay way dhacaysaa balse hadii kale waa in aad sababahan ka taxadartaa
si aad wax walba kugu fududaan adiga iyo dhammaan intii maxay walaalaheena ee kula fikirka ah ama marxaladan kugula jira aad ayaad u mahadsan tahay Zainab oo Qardho fariintan inoo kasoo dirtay waxaan idin leenahay adiga iyo reer Qardho mar labaad mar saddexaad mar afraad ku soo dhawaada barnaamijka madasha qoyska haddii aynu sida caadada inoo ahayd basii sheegno qodobka xiga ee aynu toddobaadka dambe haddii Allah awood leh inoo saamaha aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena madasha qoyska qaybtiisa weydiimaha waxa weeyaan xanaaqa faraha badan caqabadaha uu qoyska u horseedo iyo waxyaabaha laga dhaxlo waa qodobka toddobaadka dambe aynu ku soo qaadan doono haddii Allah awood leh inoo idmo guud ahaan daawada waxa intaas ku dhan barnaamijkeena madasha qoyska qaybtiisa weydiimaha TV-ga caalamiga SBC Somali TV barnaamijkan waxa idin soo saartay anigoo ah Asiya Abshir Aadan waana kamaradii Maxamed Ismaan Damdam oo aalaaba kamarada barnaamijkan u qaabilsan intaan mar kale iyo toddobaadka dambe iyo qodobkeena dambe ama mawduuceena dambe ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.